السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan la wadaagaya xog muhiim ah ku saabsan saylada magaalada Burco. Saylada Burco waa mid ka mid ah suuqyada xoolaha ugu weyn uguna caansan Somaliland iyo guud ahaan Geeska Afrika. Waxay ku taallaa magaalada Burco oo ah xarunta gobolka Togdheer, waxaana si gaar ah loogu yaqaanaa ganacsiga xoolaha nool sida geela iyo adhiga. waa xudunta ganacsiga xoolaha Somaliland. xoolaha laga keeno gobollo badan sida Sool, Sanaag, Togdheer ilaa dowlad-deegaanka Soomaalida. ganacsato ka timaada gudaha iyo dibadda, gaar ahaan Carabta, ayaa ka iibsata xoolaha. door weyn ayay ka ciyaartaa dhaqaalaha dalka. saylada magaalada Burco waxay shaqaalaysiisaa ganacsatada, xoolo dhaqato, gaadiidley. waxay si toos ah u taageertaa dhoofinta xoolaha ee dekedda magaalada Berbera. xilliyada ciidaha iyo xajka, qiimaha xoolaha aad ayuu u kacaa. sayladu waxay shaqaysaa maalin kasta, balse subaxii hore iyo maalinka ilaa duhurka ayay aad u shaqaysaa.